qolada saddexaad ee bacda ramadaan waxay noqonaysaa qof bishaan cibaadaystay oo si fiican u cibaadaystay haddana sii watay cibaadadiisii kuwaas iyagana waxaan leenahay yaan la isdhigan maxaa yeelay shaytaanku marka uu ka hadlayay dadka uu lumiyo wuxuu hal qolo oo keliyu sheegay wuxuu sheegay waxaan lumiyaa qolada toosan oo khayrka ku jirta la aqcudanna lahum siraadaka almustaqiim ilaahay waxaan ballan qaadayaa waxaan u fadhiisanayaa wadada fiican ee ay marayaan baan u fadhiisanayaa marka shaydaan qof ku jira dunuub iyo macaasi ma raadsado shaydaanku wuxuu raadsadaa qofka cibaadada ku jiru raadsadaa marka ha isdhigan waxaad ogaataa in shaydaan uu kugu soo maqan yahay waxaad ogaataa shaydaanku inuu qaabo fara badan kuugu iman karo waxaa ka mid ah shaydaanku inuu kugu yimaado inuu camalkaagii fiicinaa shaki kaa geliyo inuu istus kaa geliyo inuu ka dhigo inaysan daacad kaa ahayn walidaalika salafku waxay odhan jireen dadkii hore waxay aad uga walwali jireen camalka in la sameeyo waxaa uga muhiimsanaa in camalkan la aqbalo inay ka fekeraan camalkii aad samaysay qur-aan waa akhrisay waa soontay waa sadaqaysatay waa tukatay wax badan baad samaysay laakiin iyaga waxaa uga weynaa in wixii la aqbalo maxaa yeelay camal kasta oo la sameeyo ilaahay ma aqbalo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu ka aqbalaa oo keliya kuwa isaga ka cabsaday camalkii waa la wada sameeyey laakiin qof kasta lagama aqbalin camalkii waxaa laga aqbalay dad gooniya marka adigu ma ku jirtaa dadkaas mise kuma jirtid waa inaad dadaalkeeda la timaadid oo su'aasha aad isweydiiso walidaalika cali bn abi taalib wuxuu odhan jiray radiallahu canhu waxaad noqotaan kuwa ku dadaala camalka in la aqbalo si ka daran saa ugu dadaashaan camalka aad samaynaysaan maxaa yeelay camalku qiima wuxuu ku yeeshaa aqbalitaankiisa marka in camalkii qofka uu in badan ku soo celceliyo camalkan aad samaysay ilaahay ma ka aqbalay ilaah raalli ma ka yahay armaa ku jirtaa inaad xoogaa istus iyo in lagu arko iyo in lagu ammaano iyo qofku inuu ka fikira walidaalika ayuha alikhwa nabiga calayhi salaatu wasalaam baa aayadan akhriyey والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة عائشة وحيت رسولك إلهيو آيادا لها يستقضتك لا إيمانيا عملك في عن وهدنا عبسنيا وكويم كو خمرق عباء وحذا وحول مايا كواس ما عائشة دد كان لقاها الليو ودد عبادة السحة لي في عن لكن كبقى إن لقى أقبلي وايو شيطان كاهري مايو حداد سيفي عن أصونتي oo si fiican u tukatay shaydaan ka hari maayo wuxuu ku gelinayaa quruur isla weyni inaad ka fiican tahay in ilaahay ka jecel yahay inaad ka quraan badan tahay intaas quraan akhrisay tuman khadmaan sameeyay shaydaanku quruur buu ku gelinayaa si camalkaaga hoos u kaaga dhigo shaydaanku wuxuu ku gelinayaa dadka kale in ay yisto shaydaanku wuxuu ku gelinayaa inaad magac raadsato iyo ammaan dadkaasaan tujiyey intaasoo wacdi baan jeediyey intaasoo qof ay dhageysatay intaasaa ay maqashay intaasaa laykii saartay waxaasoo dhan waxa ay kaa qaribayaan waa inaad ogaatid waa camalkaagii marka waxaa muhiima walaalayaal dadka laftigooda saas ah inay ku dadaalaan in camalkooda ay ilaaliyaan oo geesaha ka ilaaliyaan oo ilaahay ay weydiistaan subxaanahu wa tacaala inuu ka aqbalo waxaan aad ula yaabaa qur-aanka ilaahay baa wuxuu u diray nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi ismaaciil inay kacbada dhisaan cidda la diray waa laba nebi waxa loo dirayna waa maxay waa inay kacbada ilaahay dhisaan camal ka weli miyuu jiray camalkaas haddana waxay leeyihiin markay kacbada dhisayeen rabbanaa taqabbal minna innaka anta asamiicu alcaliim ilaahayow naga aqbal camalka aan samaynayno haddii nebiyaashii ilaahay oo weliba ilaahay uu u diray shaqada inay qabtaan oo kacbadii ay dhisayaan ay ilaahay ka baryaan inuu ka aqbalo innagu xaggaynu joognaa waxaa laga wariyaa dadka salafka ahaa mar kastoona cilmi iyo cibaado sii barto waxaa iisii siyaada cabsi ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo inaan ilaahay ugu sii dhowaado marka intii hadda wuxuun samaysay cibaado oo fiicnayd
inay ku dadaalaan inay hagaajiyaan intaas marka waxaan jecelahay wixii ku saabsanaa saddexdii qolo ee ku saabsanaa ramadaanka bacdi sida la ahaanayo inaan wax ka idhaahdo